waxaad ahayd intaan bartay ruuxii ugu xumaa ee aan barto. Waxaan ka shalaynayaa intaan adiga kula socday waqtigii iga lumay. Mararka qaar jacaylka xad la'aanta ee aan ruux u qaadno nolosheena ayuu ku ciyaaraa. Waxaan diyaar u ahaa nolosheeda inaan waayo intaan adiga ku weyn lahaa. Intaan islaha dulqaado ha degdegin, waxaa laga yaabaa inuu isbedelo. Waad ka badbadisay adiga, weligaana isma bedeli doontid. Waa laga yaabaa ruux haddii uu dabeecad ka xun yahay inuu isbedelo, laakiinse adiga dabeecaddu keliya kama xumin ee xumaantaada qalbiga ayay gaartay. Samirka badan sawirka ayuu ka qaraar badan yahay, jacaylka badanna naxayb ayuu dhalaa. Dunida ayaan kugu jeclaa waana kugu nacay, sababtan adigaa lahaa. Waxaan ogaaday daryeelkayga inaadan u qalmin. Jacayl iska badaa xataa nacayb. Dunidan waxa ku nool dareen laabo adigoo kale ah. Xiriirka macnihiisa maxaad ka taqaana? Nolosha ayaad cariiriga u gelisay. Waxaad si qaldan u isticmaashay xiriirkeena. Markaad aniga ila joogtid waxaad leedahay weji, markaad dadka kale la joogtidna waxaad leedahay weji kale. Aniga maba islahayn ruux noocaan oo kale ayaad baran doontaa. wax cusubna ma ahayn. Ruuxaad aamintay inuu dhabarka kaa duubto, balse dunida ruuxba maalin ayaad barataa waxa uu galo iyo waxa uu gudo. Intaan qaladaadkaaga iska indhatirayay ayaa nafteyda qaladka galay. aniga miyaan noloshaada u qalmin? qalbiga miyaan kaa dhaawacay? waa maxay dhibkan kuu geysto aad iga gudayso? waxay ahaataa waxaan ku faraxsanahay sheekadaada dhammaadkeeda inaan ogaado, wejigaaga labaadna aan barto.